dhawaan ayaa ay ahayd markii uu gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay diyaar u tahay in ay wada hadal la furto maamulka Khaatumo oo uu sheegay inay tabashooyin badan ay tabanayaan. waxa gaar ahaan fariin ugu diray dowladda bariga raga imika ka bilaabay jabhadayda ee Cali Khaliif Toobiyahay jabhad waxa la sameeyay marka uu garwaaqsado jabhad laga soo maray waxa jabhad u soo maray marka la ismaqli waayo ay qolada suqata wala wax maqlayna adiga inta carruurta waa ku dhageysanayna kale waxa la qayso diyaar baan ku nahay kale madaxweyne oo kale wasiir oo kale xisbi furo diyaar baan ku nahay laakiin deemataan qali ma iyo Soomaaliland ma jirto Soomaaliland ina dubiyo Xasan aanu heeriyay u qaadanaya qoliga taa qali ma iyo haddaba Cali Khaliif Gareer madaxweynaha maamulka Khaatumo ayaa isna waxa uu sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay in uu wada hadal la furo Soomaaliland waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ka jecelahay in aqal la isticmaalo in la wada hadlo in nabadda lagu soo dhawaado in wixii dan markaa la wada leeyahay hooyaha laga joogo uma muuqato magaalada Hargeysa iyo Burco maamulka jooga inkastoo maalmahan aan maqlaynay niman hadlayay oo lahaa wada hadal baan rabnaa wada hadal haday rabaan ma ibraqba lagu adimayaa wada hadal haday rabaan meelaha loo maro way yaqaaniin annagu wada hadal diyaar baan u nahay laakiin waxa shardi ah dhulkan inay ka kacaan Birxiir Mawlid Ismaaciil shabakada wararka Wanaag News magaalada Hargeysa.